sidaan wayay arooriyaan meeraale soo kacay meel maxigaan jilbaan dhigay dhirtu ay magoosho maankayo caleentii isku maydhaxsoomeen sidaan wayay arooriyaan meeraale soo kacay meel maxigaan jilbaan dhigay waa magaalada Saylac oo xalay roobab waaweyn oo duufaan ay ka da'een saacadu waa 5 subaxnimo sadalka ka maqlaysan unkudka roobka adarkiisana wuxuu ku da'ayaa xeebaha iyo badda dhexdeeda ayuu ka da'ayaa oo roob aad u weyn isla markaana duufaan wata oo roobabkii laga digayay roobku wuxuu u helay magaalada Saylac waxaan saameyn baxa cirku waa jiq oo xidhan yahay daruur laakiin maanta joogis bay noo noqonaysaa maamulayn bismillaahi raxmaani raxiim halkan aad aragtaan waa magaalada Saylac meel ka sokaysa toqoshi ah waxaan maaha biyihii badda waa roob da'ay maanta waxaan joogaa magaalada Saylac waxaan nagu heshay duufaantii iyo roobabkii da'ayay ilaa xalayna hayay dhulku waa sidaas maaha halkani bad webina maaha laakiin roobkii da'ay baa saa ka dhigay walaan ku yara socono aan eegno ilaahay sahla umuuraha waar yaasiino bal meesha ka waran biyaha saasii badda ku gelayaan waa webi yaa waa webiye ilaahay weeyaan webiye ilaahay baa meesha ka dilaacay saaxiib Khalid oo bali waran magaalada Saylac baad ku dhalatay bal ka waran roob sidaan weligiin ma heleen may wallahi maanta roobkan roob la mid weyn ma helin waxaan ka dambeeyay ma badba may waa roob daadkii baa socdaad ma daad baa waxa saasi dunida ilaahay waxa saab bad intee halkan u jirtaa badu ilaa halka way jirtaa ilaa xagana way jirtaa meel walba joogtaa bad haye ma imku way caarido way ma joogto bad ma joogto imika laakiin biyahan waa biyo cirka ka yimid daadkii baa socda haye oo badii bad leeg baa ku darsantay haye saaxiib adiga magacaa Abubakar oo maalka baad ku dhalatay adna inteed joogtay ilaa intee leekan bal ka waran roobabka sanday weligaa ma kugu heleen halkan wallahi tabrigi duufaantii sagar ayaa dhulka aakhiro haye sidoo kale roobka iska daano duufaantii sagar badu ka qoray haye sababtii hadda roobka daa ee kala badka dhigaan haye biyaha baddu halkan inaga dambaysay ma soo gaadhaan way soo gaadhaan halkan dad u dhaafan baa 15 iyo 14 badda 14 maxaad ka wadaa markii dayax soo jeedo ayay budna xoog soo gudbisa sidiina kala dhag markaa toqoshi halkaan u mari karnaa imika wadada baan haysanaa shaqooyin baan soo baxay laba doox oo dhaxtay socon bartii haday socdaan gaariga mari karay haddayna socon markaa biyaha inta leeg markay fadhiyaan maxaad ka filaysaa dooxina soconayeen kale doox kulay badii biyaha socdaan isagana uu socdaaba had abeen ku soo rogmad aba ku kowda duhurnimo markaa dooxyada halkan biyaha keena halkay ka soo rogmadaan talow ku Jabuuti ka sareeyo meel leeyahay ubuqdi Jabuuti ka sareeyay haye dhagaxle markii Itoobiya ku yaalay jigjiga iyo heer u dhaxeeyay ayaa Saylac biyaha keena kaceel qalbu ku soo darsamaa marka roobo badan oo magaalada hore u qaatay miyay jiraan mise kan baa ugu weyn way jiraan roobo badan oo magaalada hore u qaato Soomaha magaalada markaa badda way ka hoosaysaa baan oran karnaa way ka hoosaysaa intii sax aad iyo aad baad mahadsantii saaxiib imika waxaan ka baxnay magaalada Saylac sad halkaa ka aragtaan magaalada gebigeeda biyo ku hareeraysan roobabkii daaya awgeed insha Allah khayr bay noqoni waxaan tagi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo magaalada Caasha Caddo gaariga ay naga horeeya anagu masiirinaya
ما مقشين بركدا أنت بيه قلان بفلاحتي ذيك الشوجة بدي وبيه ساكو فرميلو بيه ميري جيسي لا هذا هيو فلاحتي بيه كشوجة طيب المقش قال لي بين السيريس gaarigan aad aragtaan ee naga horeeya waa gaarigii xafiiska maamulka gobolka waxaana loogu soo daray si uu noo tuso wadada magaalada Saylac marka uu roobku da'o waxa laga baxaa wada kaliya oo ah wadada Caasha Caddo wadada Caasha Caddo marka uu sii socoto waxa ku yaala 3 doox oo waaweyn oo la yiraahdo dooxyada Cashuura dooxyadan oo 3 maalmood rogmanayay awgood waxaanu magaalada Saylac ku xanimnayn muddo 4 maalmood annagoo meel aanu ka baxno magaalada la'ayn taasina waxay sababtay in waqtigii aanu qorsheynay aanu ku maqnaano magaalada Saylac inay laba muddo nagu muddo dhaafto 2 maalmood hase ahaatee alxamdulillah dib iyo rafaad dheer kadib waxaanu ilaahay nagu nabad qabkeeyay gaariga maamulka xafiiska gobolka iyo gudoomiyaha gobolka iyo madax dhaqameedka deegaankan u dhashay aad bay u mahadsan yihiin sida fiican ee ay noola dadaaleen isla markaana ay noo tuseen wadada ilaa iyo intaanu ka soo dhamaanay roobabkii oo dhan ayna soo dhaweynayeen aad baan ugu mahadcelinayaa la socda muuqaalka sida mayay arooriya mirale soo kacay meel mahigan jilbaa dhigay birtuway magooshu mankayo caleenti isku maydhacsoome dhulka muru kasoo baxay muran dhexyaalo ana ka macaanigo waxaan هذا ليس ماري كريم وانشي برواقا halkan xagaaga sad ka aragtaan bacaad fara badan baa yaalla ciid ay dabiishu ka soo guuxisay cimilada xagaaga ma arkaa markii dambe xagaadu dhacaysa bartan baabuurta indhuhu kala shitaan sababtoo ah lasmaaso waxaa soo moosasayimka ay biyo qooyeen waxa dhigay dambe xagaada dhigay xaafadahan iyo reerahan guryaha naga horeeyana qaar bay aaseenba dadku ugu dhaadhacay dadka bahalada ugu dhaadhacaan magaaladan magaceeda naga horeeyay magaaladan hore u tirnaa taqoshi meesha laga saaro midaha meesha baabuurtii aad jirtay hadda daawato flogadii hore ee kala soo geliyay dadku hadda la socdaan weey oo meesha Saylac biyo yimaadaan ugu dar sidoo kale Saylacna halkan bay ka cabtaa ceelashay Saylac ka cabta biyana halkan bay ku yaalaan dooxyada Cashuura waddo halkan doox ka mid dooxyada shimbirtaas hadda baalanay cuurta halkan saad ka aragtaan waa landscape aan caadi ahayn waxaanu soo gaarnay magaalada Toqoshi oo ah magaalada laga guro milixda waa magaalo aad u qurux badan isla markaana qadiimi oo magaalo in badan jirtay waxaanu ku laaban doonaa wadadaas oo ay maamulka gobolka mariyeen isla markaana wareeg dheer kadib tagi doonta magaalada Toqoshi oo wax aan ka badnayn 13 kiiloomitir u jirta magaalada Saylac kadib waxaanu tagi doonaa magaalada Ceelgaal waxa ka sokeeya dooxyo aad u waaweyn oo ka mid yahay dooxa weyn ee waraaboodka la socda muuqaalka odayaal halkan ka arkaysaan waxaan joognaa dooxa waraaboodka oo ku yaala Caasha Caddo iyo wuxuu u dhaxeeyaa iyo magaalada Saylac buu u dhaxeeyaa waa doox aad iyo aad u weyn imika ceel la yiraahdo Indhabiraan aanu ka nimi sidoo kale waxaanu soo marnay Toqoshi meelo badan baanu soo marnay dooxan baanu ugu dambeyn soo gaarnay waa doox aad u weyn aad iyo aad buu weyn baabuurta oo dhan way wada gashay
halkaas sidaad ka arkaysaan halkaasaad ka arkaysaan baabuurtii oo dhan ayaa taagan oo daaxaasi uu xidhay oo daax aad iyo aad u weyn saacaddu hadda waa 4 galabnimo waxaan magaalada Saylac ka soo dhaqaaqnay muddo ku dhow 2 maalnimo welina halkan baan taaganay sida mayay arooriya mirale soo kacay meel mahigan jilbaa dhigay birtuway magooshu asxaabta iyo akhyaarta qaaliga halkan igaga xidhan soo dhawaada maanta waxaan joogaa deegaanka dooxan waxa la waraaboodka waa doox aad iyo aad u weyn isla markaana gaadiidka ka yimaada xamuulka ka yimaada Saylac ama lowga ka yimaada low yacado isla markaana ku socda Somaliland qaybaheeda kala duwan sida magaalada ganacsiyeedka Wajaale gobolka Awdal Boorama iyo magaalada Hargeysa gaadiidka inta ugu badan ee dooxyada xidha number 1 buu dooxan ka yahay imika ilaa iyo maanta koodii baanu soo baxnay ka soo baxnay magaalada Saylac haddana saacadu 5 galabnimo si cagacagaynaysa welina wuu xidhan yahay oo gaadiid badan baa taagan daawasho wanaagsan muuqaalka isha ku haya subscribe like comment-igana hanaga ilaawina aad bad maatintii sida mayay arooriya mirale soo kacay meel mahigan jilbaa dhigay birtuway magooshu mankayo caleentii isku maydhacsoome dhulka maro kasoo baxay muran dhexyaalo calaanka maxaanu safar dheer kadib oo aanu soo jiirnay dooxyo ay daadad rogmanayaan oo waaweyn dhul dhargay isla markaana biyihii roobka cabay oo baabuurku markiiba si hawl yar uu ku gelayo iyo banan aad u waaweyn waxaanu soo gaadhnay magaalada Caashacado oo wax aan saa u badnayn u jirta magaalada Saylac sida mayay arooriya mirale soo kacay meel mahigan jilbaa dhigay birtuway magooshu mankayo caleentii isku maydhacsoome hadda waxaanu joognaa gariyaadka banka gariyaadka dhexdiisa meel busa oo aad iyo aad u cabtay isla markaana biyihii roobku ay fadhiisteen oo meel aanu ka dhaafna aanu weynay ayuu hadda gaadhigu naga galay waxaanu nagaga jiray muddo ku dhow 7 saacadood halkaa aanu go'doonka ku ahayn annagoo cid ka saarta aanu weynay laakiin ilaahay mahadii waqti dheer kadib iyo rafaad dheer kadib waanu ka soo baxnay annaga iyo tiimkii safarka ku wada jirnay بعد استيري ما خلي قاري مثلا قصر ده ولا قصر قصر المقال كيف هاي هي كور جوج عاوة جوج عاوة ما جوج كم وقاس عرق وقاس وهلاعيا اللين كترنا دردبنا ما صارنا رق وحكرين كنا مش دري باورت ما صارنا مركواسي بسكت بين صارنا يا عاني نعيا بسكت جوا عيال مراعي قاعدة والبسكت غونا وي sida mayay arooriya mirale soo kacay meel mahigan jilbaa dhigay birtuway magooshu mankayo caleentii isku ka waran balcaawa jooga haye odaygina xabaal qoday ma wax kale ma moodid imsadu gaadhiga halkan galay 7 habeenimo walaal dheer waa Luqmaan Maxamed Faarax oo gaadhiga 7 habeenimo halkan ka galay gariyaad imikana ilaa 9 habeenimo ku jirtaa maan dhow ka warramay haye baabuurta waqtiga roobka gasho meesha badxilan bay noqotaa haye ka waran tayaaba aniga baa waxa wixii problem marna ismaad la intan baa kugu dhici waxaas lahaa ها gaariga waxaan sheegnay iyo waxa nagu dhacay idii baasha halka markay banaanato
كبود يا سمع إما كنت بندين ونيجي قوينا ما هرتيسا ها عيد نورا بنشرنا هي لما تحفارين أين نهاي وحبالنا تشرنا الله مالو هذا كبر 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 طبعا هكذا إنجري يرسل هذا كوكو داون من وش كأنه ما يقف مرك مال هيستو أيوة شقة هي لا دمستر ما يبتوك هذه لا شقة قف دمستر لقى ما قبتين ومجال الجواسن أو باهن إن وضع الله إسلام كاسين الشعب كده ده الجواسين وضع بطة أما أنا هذا بطة دومها يبطون بالغ بحكرة بكرة لقى ما بحكرة أنا واحد سنة حالي إلى صار بدن دقيق واحد سنة جربت هويده تنمت كم إذا بابور سنة السعودية يا قالي شقة أنا وشقة قف كسالة كلمة إن سودان عادو قطع وفر برا ترى كل سيلع وحب هات هاي مو طلع لسه وديب كان لقى ضعف قالوا قروا وكبحيا لكن سيلع مركو روبدو حل روب وين بانو قداي ساك روب وين بانو قداي سنام دي بكداي لا 4 ساعات كسر ما دور ساعه 6 ساعه ميلها marka qofka saan dhibaato la kulma ciidan cid weynna dhibaatada bala si kulanta sayla dib la'aantii aan dhawaan warbixinta ka diyaariyay ee ku saabsan dadka sayidooda oo muuqaala wada sax yahay taariikhda kan halkan waa wadada sayla annaga odayga darawalkii gaariga asxaabta waan soo wada baxnay sayla amal ka soo baxnay gaariga naga gala halka rafaad badan baynu ku qaadnay luqmaanow wadada cid customer taa rafaad weyn bay ku qabtaa sababtoo ah wadadan haddii roobad tiixo haddii gaariga tahay haddii gaari weyn dhib baa lagu qabaa dhowdhe markaas cid kastoo imika safaro ama xeebaha dhinaca ku soo waxaan leeyahay qalabkiina wax kasoo soo qaata wadadana qof yaqaan wadadana qof yaqaan waxa soo raaco saaxiiblayo saylac baan soo soconay in waxaan taaganahay nimka gebigeedo waxba nooma hadhino garbadii baan ku sii dhownahay marka haddaan intaa ka baxno meel naga muuqin alxamdulillah rabbil caalamiin keef flokis gaariga laftigiisa baa hadda soo istaagay soo kala jeedinayay maanta dhan doonayna ku caawino alxamdulillah taayigana waa ka keef flokis oo youtuber dhalinyara ayaa kamid ah raggan teamka Saciid gaarigoodu hor socday ama aan dhahday gaarigoodu naga horeeyay gaarigoodu naga dambeeyay ee markuu galaan soo noqonay saano garab sino maadaama saaxiibada dhalinyarta ay yihiin iyaguna shaqay saylac ay maadaama annaguna shaqaan wali shaqadii marka soo dhamaysanna sabtaan isku dhow waran wari luqman maxaad farxad iyo aad mahadsan tahay sida fiican noo caawisay annagu maalintii hore aan sii soconayna uu naga galay caawana uu naga galay gaariga shaqeeyay gaariga marka waxaan leeyahay teamka youtube-kana subscribe saara like gareeya share gareeya luqman aad u soo dhaweeyay aad iyo aad راعية